marka Faadumo ku dhawaad 2017 ilaa iyo hadda ayaa isjecleen wax walba way qornaayeen wixii qoranaa dhacay horta in badan dad badan isu aflagaaday doono waa ogahay soo maxaa la dadkaas isu aflagaaday doono hadda u sii horumarna aniga Catoosh jaceelka naga dhaxeeyo waa mid dhab ah xaqiiqo Faadumo dad badan caawa dhihi doono Mrs Faadumo maxay Catoosh u dooratay oo xiligan jaceelkeeda ku soo beegay maxaa leedahay ugu horreyn horta dadkaas waxa leeyahay jaceelka waa wax jiro waana wax loo baahan yahay in lagu noolaadana ay muhiim tahay aniga Catoosh jaceelkeena dad badan ka maseeri doono horta saafilaa soo thank you so dhawow quruxdii oo qof aad tahay innaba quruxdaada caadi maahan xaqiiqda waxa walba waa idin sheegnay Mrs Faadumo waa gabar qalbi wanaagsan dabeecad la qiimaha jaceelka maxaa ka tahay taas ma aan weydiinay jaceelka waa leegu dhalay intaana ku soo dhamaaday wax waan jeclaaday adiga xitaa in badan aan ku jeclahay Soomaa waa iga carartay haddana waa kana waa ii soo noqotay xaqii jaceelka ayaa ii hiiliyay Soomaa صح hal geeraaran kugu tuura quraxdii hablaha midii lagu tabaaya ayaa caawa hele ma u sacbatumi kartaan qalanjo dumaro idil qiimaha idilkeed qiimaha jaceelka garanayso ayaana caawa helay caawa waxaan soo dhaweynayaa jaceelkayga cusub Mrs Faadumo waxaan leeyahay soo dhawow dhammaan saaxiibada daawanayso barnaamijkan qaraaxa shirgareeya like saara saaxiibo badan hala gaarsiiyo waxaa lahay nolosha sideeda waxay ku wanaagsan tahay qof garan karo qiimaha jaceelka mar walba waan idin sheegi jiray jaceelka sidiisa waa wax dhab ah isla markaana xaqiiqo ah una baahan in la helo qof nolosha wax ka taqaan hore qamar suugaani ayaa ugu heesay oo dhahay qiimaha jaceelka haddaad qadarin lahayd mar uun kaama tagi lahayn marka Faadumo ku dhawaad 2017 ilaa iyo hadda ayaa isjecleen wax walba way qornaayeen wixii qoranaa dhacay hadda caawa inaa ishaleelno aada ugu faraxsanahay oo jaceelkeena Soomaalida u soo bandhigno waxaan ku leeyahay boqoradeyda soo dhawow aada weyn kun jeer soo dhawow Soomaalida waxaan leenahay nacabka darbiyada ha jiro horta in badan dad badan isu aflagaaday doono waa ogahay Soomaa maxaa la dadkaas isu aflagaaday doono hadda u sii horumarna aniga Catoosh jaceelka naga dhaxeeyo waa mid dhab ah xaqiiqo maxaa la dhahaa idinkana na taageera dahab baa lagu moodaa hadduu ruux ku daawado kama daala eegmada danihiisu wuu gabaa daliilin uma baahna da'yartii Faadumadii qurxooneed dahablamood inaad tahay dadka baan u sheegayaa inta jaceelkeena ka naxsan maxaa leedahay inta jaceelkeena ka naxsan waxaa leenahay kunaxa ama ku farax waa isjecelnahay jaceelka waa wax jiro quraxleydan ayaa caawa magaalada soo dhaweena si fiican inayna soo dhaweyn doonaan oo ay ku farxi doonaan dadkan ugu faraxsanna waxaa leenahay soo dhawaada jaceelka hawaar inaa xiligaa soo bandhigo waqtigaa ii saamaxay nasiibkaa ii saamaxay quraxleydaana waa hela caawa insha Allah isfahan dheer kadib waxaa go'aansanay inaa dadka u soo bandhigno jaceelkeena Soomaalidan waxaan leenahay qalbi isjecel ilaah baa og qalbi walbana qalbi ayuu jecel yahay Soomaaliyay waxaan idiileynaa na soo dhaweeya noo istaaga aada ugu faraxsana gabdhaas waxaa leenahay ilaahay ka cabsada mar walba ala ka cabsiga badiya jaceelka caawa waa kan xaqiiqda rumaysa ama ha rumaysan jaceelkayga dhabta ah waatan hala soo dhaweey halo istaaga jaceelka naga dhaxeeyo dhedhel maahan in badan aan u soo samreen marka haddaan is helnay idinkan waxaan rajeynayaa in aad noo ducey doontaan oo si fiican aan isku sii heli doono marka asxaabay waxaa idin leenahay xaaskii cusub ama boqoradeeda ha loo istaaga hala soo dhaweey qaraaxada maanta like shirka iyo ducada waa xaqiina lamaanahayna cusub waa in loo istaaga dadka waxaa u sheegayaa jaceelkeena inta ka xun horta waxaa leenahay niida khayr u sheega lamaana isjeclaada idinka wax ma ka bedeli kartaan
kuwa jaceylkeena ku faraxsanna waxaa leenaha farxadiina ayaa farxadeena ah soo dhawaada mar walba jaceylka waa ku dhalatay kuna dhali doonta insha allah deeq macali jiino oo tiktok ku arkaysay qof walba soo duwa habeenkii dagaalka masiswool cali key dad badan soo duween caawa beejkiisa ku dhex jirnaa qaraaxada maanta marka maxaa dhiileed beejkiisa inaa u kala kici doontiin ayaa rajaynayaa waa qofka hadda videoga naga duwaya